xidigta cadaankii dhexda kaga cabdirantee cisigii xorriyadee lixdankii ku cambaxo wallaahi bilaahi marbaad curano rabbi soo celin cududaadu sida curubtiyo ubax urdinaada cafi doontaa xidigta cadaankii dhexda kaga cabdirantee cisigii xorriyadee lixdankii ku cambaxo wallaahi bilaahi marbaad curano rabbi soo celin cududaadu sida curubtiyo ubax urdinaada cafi doontaa oo cisigaagii markala soo celin cibkuiba furiid kuwada caagar noqon colaad laga fayooba insha allahu marbaad curano rabbi soo celi cududaado sida curubtiyo ubax urdinaada cafi doontaa oo cisigaagii markala soo celin cibkuiba furiid kuwada caagar noqon colaad laga fayoobaan insha allahu marbaad curano rabbi soo celin cududaado sida curubtiyo ubax urdinaada cafi doontaa oo cishaa imani calayo caalamkoo idil calayo magaacisayni calayo codkaagu shaqayni calayo carradaada dahabka calayo shidaalka camiran calayo caydhiin la soo bixi calayo od caydh kaga bogsani calayo oo cishaa imani calayo caalamkoo idil calayo magaacisayni calayo codkaagu shaqayni calayo carradaada dahabka calayo shidaalka camiran calayo caydhiin la soo
halkan aan iskugu nimid caawa waxay ku saabsan tahay hambalyo iyo soo dhaweyn loo jeedinayo madaxweynaha cusub ee la doortay 10kii bishan September 2012 lana caleema saaray 16kii bisha oo ku beegnay xadii dadka halkan isugu yimid waxaan ka codsanaynaa in waxoogaa ay dulqaad ah muujiyaan inta xafladdu ay socoto socodka iyo hadalka gudaha ah waxaan jeclaan lahayn sidoo kale in la xadido ilaa xad waxaa jiri doona khudbooyin xiriir noqon doona oo ay jeedinayaan dadka marti sharafka ah iyo dadka kale ee loo garto inay halkan ka hadlaan anagoo markana u yeerayna gudoomiyaha ururka Banaadir Midnimo Foreningen Ahmed Nuur oo isna halkan kelmadiisa ka jeedin doona بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان قروحda badan la caawa isugu imaanay waa 42 sano kadib Soomaaliya markay xornimada qaadatay ayaa u dambeysay doorasho xor ah oo dhacdo sida mid maanta dhacday oo kale waxaan halkan uga hambalyeynaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka cusub asne Professor Jawaari waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Professor Jawaari waa waqtiga loo baahnaa ayaad imaateen waa waqti badan oo aan sugaynay dad mutacallimiin ah oo wadanka saan uga badbaadiyay dhibaatada waxaad ku imaateen doorasho xor ah waxaan idinka sugaynaa waa dadaal fara badan iyo ummadda Soomaaliyeed oo aad badbaadisaan Ilaahay idinla garab galo annagana haddaan Soomaali nahay qurba joogta iyo kuwa gudaha ku noolba waa idin taageersanaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa sacbo gacmo furan iyo aan idinku soo dhaweynaynaa waxaan kaloo halkan asna taariikh lama ilaawana aan iloobi karin asna dhigay oo aan halkan uga hambalyeynaa madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo asna dadaal aad u fara badan muujiyay asaga iyo dawladdiisa oo ama ha noqoto golihiisa wasiirada ha noqdaan ama ha noqdo bari minister ha noqdo ama wasiirka gaashaandhigga ha noqdo kulli garbasiman dadaal u muujiyaan ayagana waxaan leenahay dadaalkiinii aad ku guulaysateen oo aad keenteen maanta meesha ay taagan tahay waan idinkaga hambalyeynaynaa dhammaantiin marka barnaamijkan quruxda badan oo aad u jeedaan waxaa soo diyaariyay ururka Banaadir Midnimo Foreering oo ah urur u istaagay in uu ka turjumo Soomaalida ku nool qurbaha maxaa yeelay markii aan barnaamijkan aan asaasayno ururkan waxyaalaha nagu qasbaa waxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa marka aan aragnay Soomaalida oo xuquuqdeedii meelo badan marka la isugu tago aan ka muuqan aawadeed ayaa nagu qasabtay in aan annagana markaas aan u bandhigno ururka waxaan dhigi karnaa ururka Banaadir Midnimo Foreering wuxuu u dhigmaa xisbiga SYL ayaan dhigi karnaa maadaama waa dhalinyaro u istaagtay aan nahay Soomaalinimada waxaan idin leenahay hambalyo dadweynaha ka soo qayb galay mudanayaasha iyo marweynkana waxaan leenahay idinkana sidoo kale gacmo furan idinku soo dhaweynaynaa welcome waxaan rabaa inaan idhaaho dardaaran khaas ah aan u jeediyo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay kow mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horta kow Ilaahay ha kula garab gala xilka ummadda aad u qaaday waxaan kugu naseexaynayaa ummaddan aamaasheeda iyo rajadeeda adiga ayay ku sugaysaa sidee baad marka ugu khidmayn kartaa ummaddan waxaad ugu khidmayn kartaa kow in aad ka fiirsato dadka aad la taliyaalka ka dhiganaysid ikhtiyaaru lbitaana dadka kula talinaayo si aad ugu khidmaysid ummaddan masiirkooda ka fiirsa mudane madaxweyne maxaa yeelay suubanaha wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa min axadin tawallaa min umuuri lmuslimiina shay-an ilaa walahu bidaanataan qof talada muslimiinta wax oon ka qabtay laba la taliyo leeyahay
la taliyaha koowaad wuxuu yahay bidaanatun ta'muruhu bilkhayri wa taxufuhu calayhi wa tuciinuhu calayhi wa tudakiruhu idaa nasiya la taliye wanaagga faraayo kula talinaayo hadduu xoog iyo xoolo iyo xandha u baahayana ku taageeraayo hadduu hilmaamana xasuusinaayo waa la taliyaha koobaad la taliyaha labaad oo qofka ummadda muslimiinta madax u noqda oo yeelan kara waxaa weeye bidaanatun ta'muruhu bishar wa taxufuhu calayhi wa tuciinuhu calayhi wa tudakiruhu idaa nasiya waxaa weeye la taliye xumaha faraayo haddii uu kaalmo u baahan yahana dhahaya anaa kugu kaalmayhayo xumaanta hadduu hilmaamana xasuusihayo shartaasaad hilmaantee samay waxaan ku leenahay ilaahay ha kugu arsuqo bidaana wanaagsan oo adiga oo sharaf leh aad xilkaaga ku gudato ilaahayna ha kaa koriyo bidaanada xun waxaan leeyahay oo aan rabaa inaan ilaaho mudana madaxweyne waxaa weeye arrinta ugu muhiimsan waxay tahay allaa yay'asa alducafaa min cadlika wa allaa yadmaca ashurafaau fii xayfika dadka ducafada ah ee taagta daran ee masaakiinta ah madaxweynow cadaaladaada yaysan ka quusanin ha gaarsiinin dadka ummadda soomaaliyeed ee dhibaatadaad og tahay soo maray ee maanta aad u quntay inaad xil u qabato ha gaarsiinin inay ka quustaan cadaalada ay kaa rajaynayaan mudana madaxweyne ha gaarsiinin dadka sharafta leh ee bartay inay ku noolaadaan masaakiinta inay waxyeelaan dadka quwada leh oo awoodda leh ee taariikhda iyo sooyaalka soomaaliyeed dulmiga ku haya ayan kaanuu shiikh iyo shariif wadaad iyo caalim shayb iyo shaab kow rabaa rag iyo dumar wixii bartay inay ummaddu ay gacan bidixeeyaan ama ay sarkidiliyayaan wuxuu rabaa ahayo yowsan damac ka gelin inaad dartood dulmi u samaysa mudana madaxweyne taa baan ku leeyahay kadib waxaan rabaa mudana madaxweyne xilkan ilaah baa kugu dhiibtay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay kaa dhex xulayay biiraadatihi wa mashii'atihi doonistiisa iyo xulashadiisaba intaasoo qof oo murashaxiin ahaayeen ayaa lagaa dhex xulay ogow ilaahay wuxuu kaa sugaayo waxay tahay inaad u khidmayso ummaddan anta dillullaahi calaa ardihi ilaahay hooskiisii baa tahay oo dhulka joogo waxaan ku leeyahay ahal u naqo ilaahay sifaadkiisa subxaanahu wa tacaala ay ugu horrayso cadaaladda waqtigii la dhumin jiray hagartii la dhaafyo dhisma loo kace wardheeluu hare dadkiibaa dhaqaaqo dhallinyarya waayeel wuu dhidhiyey waqtigii la dhumin jiray hagartii la dhaafyo dhisma loo kace wardheeluu hare howlahan dhacaya ninkii maanta dhuuntay waddan sooma dhicinaye howlahan dhacaya ninkii maanta dhuuntay waddan sooma dhicinaye war waan dhowrayaa oo waan dhisayaa war waan dhowrayaa oo waan dhisayaa dhanka aan haye madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maanta loo doortay Professor Xasan Sheekh Maxamuud waxa aan leenahay madaxweynow ilaahay ha kugu asturo yaan leenahay ilaahay ha kugu asturo xilkaas si dhabcana sheekhi iga horeeyay ayaa dardaaran oo dhadhameeyay hal kelmad baan odhanayaa madaxweynaha haddaad intaa qabatid Soomaali waxbaad u tartay dadkii Soomaaliyeed sheeko yar baan idiin sheegayaa oo kooban
odayga islaam baa aqal Soomaali ku dhex jiray aqalku leeyra ma laha ama nal ma laha waa sida aqalkan ku jirno oo noo baktiyay tuug baa see gal aqalkii islaantii odaygi inay cashadii u karayso ayay doontay oo dharigii ay alaabtii oo dhan isku soo dabariday shawladahani ama mashiinadan qalabkan cusub ee wax lagu sameeyo ma jirin qoriyay soo ururisay waxay doontay inay dabkaas ay shido xaabad yar ay soo afuuftay ay tir xaqi dabka u kacay u shidid tuugii aqalka ku sii jiray yaa islaantii qori dhabarka ka galiyay islaantii waxay tir odaygii ee dharigan ku bisleeyay ee qoriga iga daa odaygu wuxuu lama haysto ninkan qoriga marinaya ama ku gugujinaya islaanta wuxuu haystaan labadoo kaliya aqalka joogan odaygu wuxuu yiri ayaa waa islaanta mukurbaad u jeedaaye dhariga noo bisle marabaad baa lagu celiyay wuxuu islaantii markii dambe way cadhood waxay tiri ayaa dhariga inaan lagu kariyo ma doonaysid waa adiga qoriga markastaba igu soo igu tuqaye kaale dhariga kari odaygiiba xaqii dhariga u kacay xaabadi hashidid buu yiri mise qorigiiba juq la siiyay odaygii wuxuu yiri ayaa waa islaanta waxaad u diiday inaad dhariga noo kari sidoo dabka noo shidid macana doonaysid inaad dabada qoriga ka gurtid labadoodii way isgaleen way islaayeen inta isku mashquulsanaayeen iyuu tuugii nafaqadii meesha loo dhigay iyuu la baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay war Soomaali sidaa baa la iskugu diray tuug baa ku dhex jira aqalka madow baa la isku wada diray ee hal kaliya hada noo sabee aqalka leeydhka u shid iftiinka u shid faanuus u shid waxaa iga shubaa dhaldhalaalka beentiya dhuuni uu isiiyey inaan dhadhansada warway dhagaxume nacabkay dhacaye dhiigayga jaqaaye dhuuxa iga shubaa dhaldhalaalka beentiya dhuuni uu isiiyey inaan dhadhansada warway dhagaxume ciidda dhulkayga iyo waxa dhex yaala marna layma dhaamo waan dhowrayaa war waan dhisayaa oo waan dhowrayaa oo waan dhisayaa dhanka aan haye Soomaalidu dhammaan dhabtii waxay rabtaa wuu dhimanayaa war wuu dhimanayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. ugu horeyn waad salaamantihiin martida sharafta badan mar labaad waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo ururka suurtageliya isu imaatinkan banaadir midnimo fureen tan labaad waxaan jeclaan lahaa iyadana inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha cusub ujeedkiisa aan caawa isugu imaanay haddii aan u gudagala arrinka halkan aan usoo istaagay oo ah ololaha waxbar Soomaaliya kullaytaba waa ka wada dharagsanaha umaleynaa dhibaatada waxbarashada ee waxbarasho la'aaneed ee ka jirta waddanka Soomaaliya halkan waa nimaanay alxamdulillah inagu lafeena waa u haysanaa qofka wax baranaya inuu wax barto sidaas awgeed haddii aad jeceshahay waddankaada inuu noqdo mid dego soo ma haboono in ardada laftirkeeda investment aad ku samaysid oo maal gashatid Soomaaliya in waxyaabo maalgashiga sameyn karta ma ahan oo kaliya in lacag bixisid waqtigaada gali xataa sidaas awgeed haddii aynu nahay dhalinta Soomaaliyeed qaasatan qurbaha ku nool qaasatan magaalada Yotobori waxay noo soo magacaabeen ururka United Somali Students inaan u noqono matalayaal magaalada Yotobori أنا عاوكم بس تلاقين هالكن كهذلو لكن نسيب وناك وحن إذا سو قد بنا يا درين كيجا أما شعور تيدا عاوة سدا إيتاي إن أنا دلوا ذا أنك قريب قالوا تاجر ذا مدحوينها عصب مداني حسن شيخ محمود وأنا لين هاي مدحوينه وحن كذا قلب تاجرنا هاي تاجر بوحدة نوع كستي أهاتبا waxaa kaloo inaan xusno mudan sida uu sheekhu hore u sheegayba
dadkii ka soo shaqeeyey inay maanta Soomaali gaarto inay ku doorato madaxweyne waddanka dhexdiisa dad ayaa naftoodii u huray oo horkacaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ma ka hadlayno oo kaliya inta nool dad ayaa god ugu jira rag ayaa naftooda ku waayay oo aan ogsoonahay dadkii u soo gurmaday Soomaali inay ahaayeen gacan ka gardaran ayaa dishay waan xusaynaa waan xasuusanaynaa waa halgamayaal waa dad naftooda u hora Soomaaliya waxaan maanta u dabaaldegaynaa ma aan ku faraxsanahay dadkii ka dambeeyay waay ma magacaabi kara hebel iyo hebel ma dhihi karo waa badan yihiin laakiin waxaan ognahay inay badan yihiin ay naftooda u horeen Soomaaliya madaxweynaha waxaan kula dardaarmaynaa Soomaali inuu ku dhaqo cadaalad iyo sinaan hortay culimada ayaa ka hadashay wadada ay leedahay dawlad waa dastuur iyo sharci haddii sharciga iyo dastuurku ka leexato ama ay leexleexasho gasho ma soconayso dawladdaas waa tareenkaas oo birti laga leexiyay lagama yaabo inuu xaafado dhex maro wadada saxda ee cadaaladda ee midnimada ay ku imaan karto waxay tahay in Soomaali oo cadaalad ku dhaqo waxaan u rajaynaynaa amaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay ku garab galo naftayda iyo idinka iyo Soomaali meel kasta oo ay joogto caawa waxaan kula dardaarmaynaa in la garab istaago aan garab istaagnay seen ku garab istaagi karnaa YouTube aan joognaa kelmad kasta oo wanaagsan oo aan yiraahdo waa taageero waa sadaqo aan ku taageernay kelmadda wanaagsan aan ka waantowno waxyaabahan la soo qoraayo ee anaga aan isu sii gudbinayno buunbuuninayno maalin walba waxaana loo soo gudbiyaa war aan jirin oo laga sheegayo in dadka hogaaminaya ummadda Soomaaliyeed inuu horta wadan yahay professorku marqaati waa ka wadanaa sababtoo ah waxaan ka aragnay TV-da intuusan noqon madaxweynaha ka hor madaxweynaha waxaan arkay aniga TV-gaan ka arkay isagoo muwaadin Soomaaliyeed ah meel biyo degeen ah ma aqaan wadada ay ahayd adiga meel xamar ku taal oo biyo degeen ah oo ummaddu ay ku dhibtootay baawurta ay ku dhibtootay asagoo dhex taagan oo biyahaas dhulka ka qaaday marka waxaan marqaati ka ahay asagoo muwaadin ah oo aan xil huwanayn haddii uu waajibkaasi saaray maanta maxaan ka filan karnaa asagoo madaxweynaha qaranka inuu noo qaban doono dardaaranka marka aan leeyahay madaxweynaha aan u gudbina aniga waxay tahay waxaan ka codsanaynaa madaxweyne ninka aad noo soo xuli doonto inuu prime minister noo noqdo aqoontiisa ka sokow muhiim waxa ah inuu noqdo qof muwaadin ah Soomaalinimadu ay ku weyn tahay u istaaga u dhinta inuu qadiyada Soomaaliyeed u shaqeeyo ee uusan noqon qof raba inuu qadiyada Soomaaliyeed uu ku shaqeysto oo mansab uu ku gaaro yaana naloo keenin yaan la dhihin qofkan waa PhD waa professor laakiin ay damiirkiisa ku yarta Soomaalinimada rabo oo kaliya inuu taariikhdiisa ku badsado xilban Soomaaliya aan ka qabtay marka aqoonta ha barbar socoto muwaadinimo ha barbar socoto sidoo kale sida Sheekh Cabdiraxmaan uu sheegay ma habboona Soomaali haddaan nahay inaan maanta aan qof amaano markuu xil huwan yahay oo kaliya bari markuu naga tagana aan ay iyo aflagaade iyo wuxuusan naga muteysay inaan la soo istaagno waxaan xasuustaa munaasabad waxaa nooga horeysay Sheekh Shariif Sheekh Axmed markii Djibouti lagu doortay sidaanu kala u soo dhaweynay oo sacbinay taageeraan u muujinay maanta markii xilkii uu ka tagayna waxaan aragnaa waxyaabo uusan muteysan madaxweynaha macnaha in media ha noqoto meel walba ha noqoto la marsiyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed sida professor Xasan Sheekh Maxamuud uu nasiib u yeeshay ayuu asagana hal mid uu nasiib u yeeshay nasiibkaas waa nasiib la mid ah haddana nasiib taariikh kale uu ka tagay waay Allahu naxariista aadan cadi uu ka tagay rahmatullahi wa barakaatuh raalli aad idin maqal weysaan assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu marka ugu horeyso waa salaamayaa marti sharafta iyo haweenka ragga
شرفت لك سقيب ولا حفلة قيمها بدل marka labaad waxaan haddii aynu nahay dhalinta Soomaaliyeed khaasatan ee qurbaha ku nool khaasatan magaalada Youtube waxay noo soo magacaabeen ururka United wili qalbigeen aan ka goyn marka waxaan leenahay Ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo intii ku dhimatay jannadii firdaws Ilaahay ka waraabiyo marka labaad waxaan aad iyo aad markan ugu faraxsanahay xafladan qiimaha badan leh lagu taageerayo madaxweynaha cusub waddankeena Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo aan leeyahay hambalyo waxaan mar kale aan leeyahay xafladan dadka soo qabanqaabiyay ee igu marti qaaday anigoo marti ku ah magaalada ka imaaday magaalada Kartiyorom ee Tobori aan ku ahay marti igu casuumay ayagana aad ugu mahadcelinaa banaadir midnimo waa mahadsanyihiin waa tahay DJ Subayr waxbuu dhigay runtii halkaas ayaan dabcan wali ka sii ambaqaadina inagoo joogna qaybihii gabagabada ee qaybta hore ee xafladda iyadoo ay jiri doonto qaybta dambe ee dhalinyarada kolley iyaga yaqaana halka ay kala dhici doonaan waxaan markan u yeeri doonaa mar kale maama Sacdiyo Soomaali oo kelmado baraarujin ah halkan iyaduna ka sheegi doonta bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u nimid caawa aan sagoo midkii la sagoo madaxweynihii la sagootinay madaxweynahan keensanaynay iyo ra'iisul baarlamaankii marka waxa waaye anigu Faadumo Macalin caaw kuma soo talagelin inaan meeshan anba ka hadlo anbaan ka baraanburo laakiin ku soo dhawaa way waan ku soo dhawaaday Ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkayna iyo dal muslimba inuu Ilaahay badbaadiyo intii dhimatayna Allah u naxariisto anba suxufiyiinta anba shicibka kale Ilaahay kuwa hore iyo kuwii dambaba haddana waxaan ku soo dhaweynaa oo tix baraanbura noo hayso binti Maxamed iyo Sacdiyo Soomaali bismillaahir rahmaanir rahiim wixii la dhihi lahaa horaa loo dhahay hal kelmad in lagu noqnoqdo ma fiicno hal loo duceeyo madaxweynaha cusub madaxweynaheennii horena Sheekh Shariif Sheekh Axmed asigana waxaan leenahay ninka garab gala dawladda aan ka harin ee gacanta haya ee daba orda hor iyo gadaalba ka maro Ilaahay ha ka dhigo horeyna uu ahaa haddana insha Allah waxaan doonaynaa inuu madaxweynahan cusub uu yacni gacan qabto Xasan Sheekh Maxamuud ayaan leenahay xasana waxaan ku leenahay annaga gabdhihii Soomaaliyeed aan nahay oo qurbaha joogay qurban ku daalay waa ku rafaadnay waddankeennii u soo soconnaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku xisaabtamaynana waa waddankeennii hooyada tan dhibaatada qabta waa hooyo wiilkeedii baa dhimanaya ninkeedii baa dhimanaya walaalkeed baa dhimanaya adeerkeeda dhimanaya abtigeeda dhimanayo hooyo waa inta dhibaatada qabto waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed oo adduunka dacaladiisa xabsiyada ku uray ee beeraha lagu qoto gabdhaha Soomaaliyeed beeraha lagu qotaa waad noogtihiin caalamka meel kasta ay joogaan wax ay yihiin male ayagii xoolaha isku hal waay beeraha lagu fashaa habeenkiina waa lala xaroodaa waxaan ku leenahay madaxweyne gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan Soomaali oo dhan dibadaha way ku silicsan yihiin xabsiyada ay ku ureen waa ina fiiro gaar u yeelataa Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa waa ku duceynaynaa Ilaahay kii reerka dajiya Ilaahay inuu ka dhigo inaad noqoto waxaan ka rabnaa ninkaan yacni ku tashanin qabiil ku tashanin Soomaali ku tashado Soomaali weyn ku tashada Allah ka dhigo ninka talada fiican qaatan Allah ka dhigo waxaan kale u tahniyadaynaynaa Professor Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka asigana waxaan leenahay soo dhawow waan u hambaliyaynaynaa waxaan leenahay iskaashada waxaan sugaynaa haddii Ilaahay yiraahdo oo aan sugayn waa ra'iisul wasaarahan u fadhinaa Ilaahay idinkiisa waxaan idin leenahay guul iyo nabad haddana waxay noo buraanburaysa binti magaca Soomaaliyeed oo cishriga ka nuur cirkaadu egtahay rabbiyo laga cabsado kuwii ku caawin ilaahay kama caajisaan cirkaadu egtahay rabbiyo laga cabsado mudane madaxweynaade ku miraynaya magaca Soomaaliyeed baad ka tahay mas'uul magaca Soomaaliyeed baad ka tahay mas'uul mudaha magnaada malahagii ku dili lahay waxaan markana dabcan siin lahayn
kelmadda ugu dambaysa micraaj oo isna ku hadli doona magaca ama guddiga qabanqaabada ee xafladan soo agaasimay oo kelmateyn isna halkan ka dhihi doona. السلام عليكم دمانتين ومهد سنتهين وحا هالكان ugu mahad celinayaa dadkii xafladan ka soo qayb qaatay ka soo gacan geystay maamooyinkeena maama Faay maama Xaliimo binti maama Sacdiyo iyo dhammaan wixii soo abaabulay iyo wixii gacanta weyn naga siiyay waxa kale oo mahad celinayaa Dahabshiil iyo Banaadir Travel oo ayagana gacan weyn nagu siiyay waxa kale oo halkan ugu mahad celinayaa dhammaan wixii gacanta nagu siiyay oo dhan TV-ga qaranka oo asagana caawa meeshan joogo Maxamed Cumar iyo Maxamed Xaaji kulligiin waa mahadsantihiin groupka Dream Team waa mahadsantihiin idinkana idin leenahay DJ Subeer fanaaniinteena kulli waa mahadsantihiin madaxweynahan waxa u rajaynaynaa kii qeer dalkii ka dawaaliyo oo wax fiican u qabto إن شاء الله ودن كان إنا أنقنا أنا جو وذا جوجنا كل يوم وذا بحنا إن شاء الله وما تسنتين دمانتين isna uu maadsan yahay mudane micraaj oo ahaa nin ku hadlay magaca guddiga qabanqaabada ee xafladan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadka ka soo qayb galay mudanayaasha marwooyinka dhalinyarada waayeelka dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muujiyay rabitaanka iyo qeyrada wadaninimo iyo sida ay raali uga yihiin in wadanku uu qaado wado sax ah oo ka duwan tii qaribnayd ee aan ku soo soconay 21 sano ee la soo dhaafay waxaan u mahad celinayaa ninka DJ Subeer oo runtii naga qabtiray dhinaca suugaanta iyo kala bedelka mixerka iyo sidoo kale musiga waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Maxamed Cumar oo isna noo hayay kaamirada telefishinka qaranka Soomaaliya Somali National TV xafladeena qaybtii hore ee aan ugu tala galnay in khudbooyinka ay ka jeedaan dadka aan u igmanay halka ayay dabcan ku idishahay One,